بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرتي شرفت قروح بدن كسو قيب كشي حلفدان aan ugu dabaaldegayna maantayto konton iyo 3 guurada jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah maalinkii ay xornimada qaadatay oo ah maalinkii gumeystii Soomaaliya duulamada ku soo qaaday heeriyada gumeysi la tuuray ee laga adkaaday waxa kulligay sharaf weyn inoo ah inaynu isugu nimaadno maalinka xusidda weyn leh ee ummadda Soomaaliyeed ugu fadhida qiimaha culus ay u soo horeen dhiig naf iyo maal iyo awood waxa ay lahaayeenba awooyaasheenii hore ayna ka adkaadeen gumeystii dalka iyaga ku soo duulay ee ahaa Ingiriiska iyo Talyaaniga ee ku soo duulay sharafteena diinteena dhulkeena iyo ummadnimadeennaba sida daraadeed kowda luuliyo waa maalin weyn waa maalin xormale waa maalin ummadda Soomaaliyeed ugu fadhida qiimo aan la soo koobi karin runtii maanta waa 53 guuradeedii dhammaantiin marka waxaan idinkaga mahad celinayaa sida maalinka weyn aad u qiimeyseen inagoo waliba u jirna boqolaal kun oo mayl ummadda Soomaaliyeed ee aan la qaybsanayno farxadda iyo raynta maanta aynu kula qaybsanayno inagoo kumaan kun mayl u jirna hambalyo inta kadib waxaanu guda gali doonaa barnaamijkayagii iyo habkii aan ugu talagalnay maanta inuu dhacdo ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa marka ugu horeysa qabanqaabiyaashii xafladan oo ugu horeeyo xildhibaanka degmada Esbo xildhibaan Cabdiraxmaan Jiimi oo ah runtii xildhibaan ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo ay dooratay kana shaqeeya degmada Esbo waxaan sidoo kale halkan mahad celin ballaaran uga soo jeedinayaa guddiga qaranka ee Soomaalida Finland oo isaguna ah qabanqaabiyaashii waaweynaa ee xafladan oo xubno iyaga ka midana halkan aad dilaa ku maantayto kelmadaad ka oran doona ugu horeyn guddiga qaranka Soomaaliyeed oo anigaan idin la hadlayo aan ahay gudoomiye ku xigeenkiisii waxaan mar kale idin leenahay hambalyo dhamaantan anagoo isku duuban xildhibaanka iyo guddiga qaranka Soomaaliyeed waad maadsantiin dhamaantiin sida aad u soo qabanqaabiseen xafladan waxaan jecelahay oo kale inaan xuso hooyooyinka Soomaaliyeed ee ayagoo carruurooda wata maanta xafladan u soo horay waqtigooda qaaliga si u muujiyaan weynka ay maanta leedahay oo ummadda Soomaaliyeed ugu fadhido hadal badan ahaan ma buuxsho waxaanu guda gali doonaa barnaamijkeena maanta barnaamijkaas isugu jiri doona taariikh heesihii wadaniyada haddii ilaahay ku idmaayo taariikhdii ummadda Soomaaliyeed ay soo martay heerarka kala duwan ay soo martay iyo xornimada markii aynu qaadanaynay asbaabaadkii iyo dhibaatooyinkii loo soo maray bal inaynu dib ugu yar noqono bal dhibaatada ay ka soo mareen ummaddeena gumeysi la dirirkaay iyo maanta halka aynu taaganahay taariikhaas inagoo eegi doona intayada moogna ay ka dhirgi doonto maanta waa fursad
waxaan jeclahay ugu horreyn inaan u yeero xildhibaanka degmada Esbo Cabdiraxmaan Jiimi oo isagu dhowr kelmad in oran doono maanta ku saabsan xafladda 1 Luulyo falyatafadal. bismillahir rahmanir rahiim aad ay u mahadsantahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga qaranka Soomaaliyeed. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogtaba ayaan aad u salaamayaa. waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta aad iyo aad sharaf inoo ah inaan maanta oo kale aan u dabaaldegno sanad guuridii 53aad xornimada Soomaaliya iyo isla markiiba midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed oo 1960kii 1 Luulyo ayaan mataqaana maanta munaasabadan sharafta leh isugu nimid. run ahaantii 1 Luulyo waxaa laga soo maray ninkan hore soo ugu dhawaajiyay dadaal dheer ay ku timid dhiig badan ayaa ku daatay xornimada maanta aan harsanayno iskama imaan. marka waxaan horta aan ilaahay ugu baryaynaa dadkii xornimada u soo halgamay oo xornimada darteed naftoodii qaaliga u huray inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ayaan mataqaana marka hore ilaahay ugu baryayaa. waxaan kaloo mataqaana aad iyo aad maanta aan leeyahay waa maalin aad iyo aad u weyn noogu weyn Soomaali ahaan xornimadii maanta aan maanta Soomaalida harsanayso. runtiina xornimada waxa dareemi kara macaankeeda qofka qurbaha ku nool ayaa dareemi kara ama qofka mugdi ama ku hoos nool isticmaar ayaa dareemi kara xornimada macaankeeda waxay tahay. marka looma baahno xornimadii aan markaasi dadaalka loo maray aan dibkaas ku soo gaarnay aan gacanteeni ku hananay inaan haddana mataqaana aan ku ciyaarno maanta dhiig badan wadankeeni ku daadanayo aad ayaan taas ugu xumahay. waxaan leeyahay mataqaana xornimada waa wax muhiim ah aad iyo aad u muhiim ah oo aan la heli karin. Soomaaliya waxaan leeyahay madooba qoriga iska dhiga nabadda hal qaato oo xornimada maanta aan u dabaaldegayno ha laga dhabeeyo in ay mataqaana Soomaali raas Kamboni raas Caseer iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba inay xornimadaas maanta ay ogaadaan qiimaheeda waxay tahay. anoo haddaba ku hadlaya magaca magaaladan aan xildhibaanka ka ahay ee Esbo oo ah magaalada ugu weyn ee labaad wadanka Finland uguna dhaqaalaha fiican wadankan ayaan waxaan mataqaana hambaliya gaar ah u soo jeedinaa Soomaalida gaar ahaan ku nool halkan magaaladan Esbo ayaan aad iyo aad ugu mataqaana hambaliyanayaa maalinta xornimada Soomaaliya. aan rabin in hadalkayga ku sii dheeraado waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadinayaa telefishinka qaranka Somali Channel oo asagana maanta halkan goobjoog ka ah ayaan asna waxaan leeyahay hambaliyo 1 Luulyo ayaan u hambaliyanayaa iyo ka soo qaybgalay munaasabadan qiimaha weyn intaan dada maanta isugu yimid oo dumar iyo rag isugu jira iyo caruurba ayaan waxaan u leeyahay hambaliyo. waxaan kaloo hambaliyanayaa Soomaalida guud ahaan Finland ku nool ayaan u hambaliyanayaa hadalkayga waxaan intaas ku soo koobiyaa. waxaan leeyahay sanadkan kiisi kale Soomaaliya ha ku gaarto bashbash barwaaqo iyo annagoo haysano xornimo intaan ka sii fiican ayaan iyo nabad ayaan rajeynayaa sanadka dambe du'aal yiraahdo inaan gaarno du'aal yiraahdo. hadalkayga waxaan ku soo ganaanudayaa intaasi waxaan ku soo wareejinayaa mar labaad mikrofoonka gudoomiye ku-xigeenka qaranka guddiga qaranka Soomaaliyeed Mr. Dalal. marka waxaan u yeerayaa Dr. Ahmed Maxamed Weheliye oo ah oday Soomaaliyeed taariikhyahana goobjoog in badan u soo ahaa. sidaa daraadeed maanta waxaanu doonaynaa inaynu la wadaagno maalinkan xornimada Soomaaliyeed iyo culayska ay leedahay iyo farxadda maanta bal inuu noo taataabto sawirka ay maalinkaas hulay siday u ekay. bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد آد أيان مانتا وفرح صناهي إيران كقيب قالوا حفلة لوح حسي سنة قوردي كنتن إسدحاد مالنتي صوماليا أي حرية دي دهانت 1 Luulyo 1960 waxay ahayd maalin weyn oo Soomaaliya da koonfureed isqalka qaadatay lana midowday gobolladii waqooyi ee Soomaaliya oo ayagana qaatay gobonimadooda
كون يسقال بقول لحدنكي لحي لبعتكي جون مدوغاس أي مدوبين لبد الدولة وحكسوا بحي جمهورية دي صوماليا أو النقطي دولة دي أفريقيا حرية كقاطي لحدنكي قميسية عدانك دولة سوغاري استقالك مركي لقادني إلى دور 10 دولة أو سنة كاس استقالك ودقات waxaan rabaa dadka meesha fadhiyo taariikh ahaan inaan uga sheekeeyo Soomaaliya waxay kamid ahayd wadamadii gumaysiga oo qabsaday gumaysiga cad iyo mid ka madow oo 1884 ku qaybsaday shirkii Berlin dawladaha Afrika arrinkaas wuxuu ahaa in gumaysiga cad iyo midka madow oo Itoobiya ay ahayd oo kaligeed ah inay Afrika qaybsatay Soomaaliyana loo qaybiyay 5 qaybood qayb oo Talyaaniga qabsaday qayb oo Ingiriiska qabsaday qayb Itoobiya la siiyay iyo qayb kale oo bari dambe lagu daray Kenya iyo qaybta Faransiiska oo ku baysanay arrinkaas markii la qabsanay dalka Soomaaliyeed Soomaalida ma ahayn dad isku dhiibay gumaysiga bal waxay ahaayeen dad u halgamay diiday gumaysiga waxa kamid halgankaasi oo lagu diiday gumaysiga halgankii oo Maxamed Cabdulla Xasan kula galay Ingiriiska gobolada waqooyi waxa kamid halgankaas dadkii waqooyiga ka dagaalamay Ingiriiska diiday muxuu ahaa sheekh caanka ahaa وكميد شيخ عانك شيخ بشير قبل هذا كيف ذلك كدق الله وحكميد الشيخ حسن برسنة وحكميد نسيب بوند انتاس لا دقال ميسيقو ميسيقا وحي كود دالين ان الدلك حرية ديسي او هانتو او حرية دي دادك صوماليد اي لهاجرين اني وصل نقطة halgankaas la soo maray markii dhinaca koonfureed loo kaco markuu Talyaaniga iyo Itoobiya dagaalka ku qaaday oo qabsaday gobolada waqooyina oo qabsaday dagaalkii labaad adduunka oo ay labada qol ay ku dagaalamayeen qolada la yiraahdo muxuu ahaa qolada Axis-ka la yiraahdo oo kamid ah Talyaaniga Jarmalka iyo Japan iyo qolada ahayd isbahaysiga muxuu ahaa Atlantic waxay ku dadaaleen labada qoloba in ay intay qabsan karaan dhul inay qabsadaan Talyaaniga wuxuu qabsaday dagaalkaas Soomaalida koonfureed hore u haystay wuxuu ku daray Soomaalida waqooyiga Ingiriiska haystay wuxuu ku daray Ethiopia oo qabsaday dagaalkaas muddo yar kadib waxa soo galay Mareykanka Talyaaniga iyo Jarmalka iyo Japan waa laga adkaaday dalkii waxa dib u qabsaday Soomaaliya la dhihi jiray waqooyigeeda iyo koonfurteeda waxa qabsaday Ingiriiska markuu qabsaday dawladahaas dagaalka ku jira oo cadaanka waxay adeegsadeen oo askartooda kamid dad Soomaali dadka Soomaaliyeed dagaalka galay waxay soo arkeen ay indhooda soo saareen gumaysiga
ujeedadiisa kala duwan oo ku qabsanaa dalalka waxa ugu soo kordhay meeshaas in ay dareemeen in dalkooda lagu soo duulay lana qabsadayna dhalinyaro arkaysi markuu dagaalka socday ayagana arkay in muxuu ahaa dalkoodii lagu soo duulay ayaa ayagoo isku darsanay waxay sameeyeen xisbi siyaasi ah oo lagu magacaabo Israel hogaankana waxa iska lahaa dhalinyarada laakiin odayaasha waa kaabayeen arrinkaas wuxuu keenay halgan dheer in loo galo xurriyadda xisbiga waxa la aasaasay 1943 magaciisana waxa la jiray markii hore wuxuu magaciisa ahaa SYC Somali Somali Club markii dambana wuxuu noqday Somali Youth League asaasiyaashii xisbigaasi waxay 13 dhalinyaro ah oo mabda ay aaminsan oo ahaa in dalka la gaarsiiyo gobonimo dadka Soomaalida laga saaro waxa lagu yeero qabaliyada iyo qabiilnimada laguna mideeyo mooto ah ama hal ku dhag ah dadka Soomaaliyeed waa dad mid ah qabiilna waa dumiye sida daraadeed midnimada Soomaaliyeed waxay ku imaan kartaa ayada oo Soomaali israacdo hadafkeeda ay muxuu ahaa higsato arrinkaas wuxuu keenay in gobolada waqooyina ayaga oo ka madax banaan arrimaha koonfurta waxay sameeyeen xisbi sigana wadaniga oo leeyahay SNL oo Somali National League la yiraahdo waxa barbar socday xisbi kale oo leeyahay USB waqooyiga marka waxay ku guuleysteen markii ay arkeen in Soomaaliya oo wisaayad la geliyay 1950 waxay ku guuleysteen in ayagana Ingiriiska ku khasbaan inuu xurriyadda siiyo dalkii la dhihi jiray waqooyiga Soomaaliya oo la dhihi jiray British Somaliland sida si la eegna koonfurta oo markii hore wisaayad la geliyay oo Talyaani loo dhiibay 1950 waxay ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya 1960 Juun iyo 1 July aniga waxaan nasiib u yeeshay dadka meesha fadhiyo aan kaga nasiib badanahay waxaan kamid ahaa dadkii goobjooga u ahaa calamka Soomaaliyeed muxuu ahaa bulugleyda waxay digta shanda gees ay muxuu ahaa kule ay bartamaha ugu jirto inaan kamid ahaa dadkii dhalinyaradii berigii safka u gashay ayagoo arday yar ah markii la saaray calamkaas waxa la saaray 12 muxuu ahaa October 1954 waxaan nasiib u yeeshay meeshii la saarayay inaan wax ka joogay waxa kale oo aan nasiib u yeeshay markii isqaalka la qaadanayay 1 July 1960 inaan kamid ahaa ardadii loo soo xulay inay khudbad ka jeediyeen maalintaas marka nasiib badan ayaan u soo helay dadka meeshii fadhiyo waxaan u sheegayaa inaan nasiibkaas oo kale aysan muxuu ahaa helin inta wixii ka dambeysay qalka markii la qaatay dalka dhibaatooyin ayuu muxuu ahaa galay arrinkaasna hadda diyaar uma hay inaan ka sheekeeyo laakiin dadka waxaan ugu yeerayaa xorriyadii shalay loo dagaalamay oo 60kii la helay in maanta waqtigaas iyo waqtigan hadda isku eg yihiin loona baahan yahay in dib muxuu ahaa qarannimadii loo soo celiyo
warkii waxaan ku soo koobaa Soomaaliya ha noolaato kowda luulyo ha noolaato dhammaantaynana aan u jeesano sidii qarnimadii aan dib ugu soo celinayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay doctor Axmed Maxamed Weheliye subciyo ka dukeeyay ka 87 baa calankayna sugaynay sahankiisa ahayn oo sad maweyda shalaacdo sagal maanta daroorow siigadii naga mayrow sadhaxaynu ahayna kiisoo saaray cadceedow samada u ekaaye xidiga mid la siiyo sixirkii laga guuriyay sareeyo manusqaamo aanu siduu yahay eegnay ka nasiibka nasa waa halgudhagii maalinka halgudhagyadana waxaa ka sii mid ahaa oo iyadana maalmaha maalinka baxay qiimaha badan dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahayo u dhiib waa halgudhagyadii iyo sawiradii ay maalinkaa lahayd hadal badan ahaan ma buuxsho waxaan kusoo gabagabaynaynaa haddeertaan waxaan u yeeri doonaa isaguna laba kelmadood la oran doona cabdi muuse oo ah isagu doctor haddii ilaahay gudmaa ka shaqeeya deegaankan Finland haddii ilaahay gudmaa nin muctarifa kusoo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga qaranka Soomaaliyeed ee Finland Mr. Dalal maanta oo kale runtii ma ahan maalin kelmado iyo hadal yar oo kooban lagu soo koobi karo waxaan jeclaan lahaa marka inaan si kooban u iraahdo marka ugu horeysa Soomaalida dhammaan maqlaysa ama ay arkaysa inta uurku jirka ah iyo waliba inta banaanka joogta xitaa caruurta uurka hooyadood ku jirta Soomaalida ah hambalyo kowda luulyo ma ahan maalin aan maanta uga sheekay karno waxa ay noo tahay ama meesha ay nooga taalo halkaan marka Soomaaliyay hambalyo waxaa laakiin sharaf ah oo aad wax loogu farxa ah in maantay xuska kowda luulyo xamar oo dawlad federaal ah ay ka shaqeyso looga dabaaldegaa maantay dhowr iyo 20 sano oo burbur ah kadib taas lafteedu waa wax weyn waa wax lagu naaloodo waa rajo aad u wanaagsan Soomaaliya waxaan idin leeyahay kowda luulyo waa sii jiri doontaa annaguna waa sii bixi doonaa jiilalka naga dambeeyana waxa laga rabaa in ay ogaadaan maalintan waxa ay tahay marka waalidiintu waxaan ka codsanaynaa dadka taariikhda yaqaana inay uga tagaan dhallaanka dambe iyo duriyada dambe kuwa hadda jooga yaryar iyo kuwa dhala doonaba taariikhda aan leenahay qiimaheedana waa in la baraa marka mar kale waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahad celiyo qabanqaabiyayaashii munaasabadan maanta magaalada Asbo kula xusayna sanad guurada maalinta sanad guurada ama maalinta xornimada Soomaaliyeed kowda luulyo waana mahadsantihiin بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن سلام يا dadka meeshan isugu yimid oo isugu jira odayaal culimo diin dhalinyaro aqoon-yahano haween caruur oo kulligood isugu yimid kowda luulyo dabaaldega xornimadii Soomaaliya 1960kii in ay ka soo qayb galaan oo ay weynaayaan isugu yimid ayaan salaanta 14 ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام wixii taariikh ahay waxa dhameeyay dadkii aqoon-yahanada ahay oo iga horeeyay oo kamid ahay Dr. Axmed Xiji oo kamid ahay ayaa dhameeyay balse waxaan jeclaan lahay inaan dhalinyarada yaryarka oo aan ayagu dawladnimada Soomaaliya ka soo qayb qaadan ama aan soo arag laakiin dhagahooda ka maqlay in aan dawladnimada waxa ay tahay wax yar aan uga iftiimiyo wixii taariikhda Soomaaliya iyo xornimadeeda ragga qiyaartii iyo aqoon-yahanadii hore oo Dr. Axmed Xiji kamid ahaa ayaa si fiican ugu nuuxnuuxsaday waxa way dawladnimadu waa shay qaali wax la heli karo ma ahan in gobol nin maaragtay gudoomiye degmo ka ah oo yiraahdo aniga madaxweyne aan ahay ama dawlad heblaan ah waa wax qalada dawladnimadu anigu waxaan kamid ahay
dadkii dhalinyaradii yaryareyd ee dowladii kacaanka ee maxamed siyaad barre khayr allaha siiye wax ku soo bartay canshuurtii laga qaadi jiray shacabka Soomaaliyeed dadkii wax ku soo bartay ayaan kamid ahay oo aan maaragtay bareefad wax ku soo baran ilaa intaas ayaan ilaa jaamacad inkastoo jaamacaddii oo ay dhamaan dagaalkii dhexe oo revolutionka ahay oo dhacay oo ilaa hadda aan ka soo waaqsan laanahay burburkiisii ana wali jaamacaddii dhamaan inkastoo uu ku dhacay waan ka xumahay laakiin hadda waan ka noolnahay dhib male wixii ku dhintayna Allah u naxariisto dawladnimadu wax la soo koobi karo ma ahan dawladnimada iyo qarannimada iyo jiritaanka hadda aan haysanana waa mid uu u soo baxay waqti iyo dhiig iyo naf iyo maal ayaa loo soo huray marka in lagu cayaaro ma ahan waxayna sharaf u tahay in Allah iyo inta ku hadasha af Soomaaliga ayay maanta sharaf u tahay sharaf ma ahan dad gaar ah marka sidaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waqtiga oo aad u yar awgeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaa la soo gaaray kaalintii saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Finland taasoo uu magacooda ku hadli doono Maxamed Bashiir aw Maxamed oo isagu ah wariyaha Somali Channel u jooga deegaankan Finland ama guud ahaan dalka Finland waxaan u yeeraynaa Maxamed Bashiir aw Maxamed in uu kalimaadkiisa ka yiraahdo ku aadan kowda luuliyo iyo bal saxaafadu sida ay u xusayso maanta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودهان أضياشا دلنيردا يلمان يعني قيبها بالشدة الصومالية دي فنلان وعيد السلام يا مركو رئيسة أنا ومقعي هو محمد بشير وحان كميدا هاي ورياشا كهول قلا فنلان سلام مركزنا كميدا بعض صحافة فنلان وحان أنا كهول مقعودا maanta aynu si wada jir ah u xusi doonaa 26ka June oo ka soo wareegatay 53 sano dhammaan bahda saxaafadda meel kasta ay joogaan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si isku mid ah ayay u xusayaan waxaana aad arkaysaan telefishinada ilaa xalay iyo saakay inay ku mashquulsanaayeen iyo guud ahaan raadiyaasha Soomaaliyeed sidii loo xusi lahaa xuskaasi oo ah maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn oo maalintii aynu qaadanay xornimada markii hore xor waan ahay laakiin dalkeena oo lagu soo duulay oo aan dawladda xooggan aysan ka jirin ayaa keentay in xornimadaasi aan qaadano marka dabcan waa taariikh raggii horeeyay ay maaragtay sameeyeen odayaasha ahaa marka anoo ku hadlaya bahda saxaafadda mar labaad iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed ha noqoto ummad isku tashatay oo dawladnimadeeda iyo jiritaankeeda ka run sheega in dalkayga aan ku noqono inaan ka run sheegno inaan iskaashiga iyo midnimada Soomaaliyeed meel kasta aan joogno aan ka run sheegno bahda saxaafadda qaas ahaan waxaan leeyahay iyaguna ha u bataan runta iyo waxyaabaha maaragtay dhibaatada u keeni kara iyo kala geynta ummadda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan isu keenida iyo mataqaanaa horumarka deegaankooda iyo dalkooda aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh